saddexda haybad ee uu dheeryahay madaxdii ka horeysay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. kow dulqaad badni, labo amaanada, saddex wadaniyada. mucaaradka saddexda aysan weligood gaari karin ee uu sameeyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo aadad ula yaabaysa dad maqasho hadalkaasi. kow qodobka ugu hore wuxuu noqon doonaa kartida, dulqaadka iyo aamusnaanta. labo waxqabadkiisa baaxadda weyn. saddex siyaasad xasiloon. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. daawadayaasha qaaliga waqti kasta idin tahay wanaagsan oo wacan. waa mar kale iyo video kaleeto aad u qurux badan. fadlan haddaad nagu cusub tahay page-kan follow dheh oo like garay siina share garay barnaamijkan hadduu ku soo gaaro. waa video kaleeto aad u xiiso badan. waxaan idin hayaa video oo aad u wanaagsan kaasoo ku saabsan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo aan ugu hadli doono saddexleedii ugu wanaagsaneed ee uu qabtay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee lagu xasuusan doono weligiisa. kow waxaa ka mid ah qodobka ugu horeeyaan soo qaadan doono wuxuu noqon doonaa saddexda haybad ee uu dheeryahay madaxdii ka horeysay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. kow dulqaad badni, labo amaanada, saddex wadaniyada. wuu dulqaad badan yaho isagoo lagu tilmaamayo kaligistalisnimo, la jaa-ifeynayo, la caynayo ayuu ka guuleystay kana dulqaatay xaalad kastoo soo wajahday. waa aaminoo hantida qaranka lagu aaminay, gurina kama dhisan, meel cidlaa qarashkiina kuma bixine wuxuu ku bixiyey habkii loogu talagalay iyo meeshii loogu talagalay. waa wadaniyo wuxuu ka guuleystay qabyaaladii caddeed ee sida ba-an loogu jaa-ifeeyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayuu soo ifbixiyey wadaniyadii aadka u weyneyd. qodobka xiga wuxuu noo noqon doonaa saddexda shay ee ugu wanaagsaneyd ee uu qabtay 4 sano intuu xilka hayay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. waa kala soonisiintii golihii shacabka. labo dhisidii goobaha bulshada ay iskugu imaan jirtay. saddexe wax ka bedelkii siyaasadda dibadda. qodobka ugu horeeya oo ah kalsoonisiintii golihii shacabka oo awoodii dhammeyd ayuu dib ugu celiyey. go-aan walba uu gaarayane ayakuu dib ugu celinayay. qodobka xiga oo ah dhisidii goobihii bulshada iskugu imaan jirtay sida tiyaatarka qaranka ahayd oo weliba lagu dhisay isxilqaan kaasoo dib loo dayactiray maantana ah meeshii ugu wanaagsaneed ee loo tago waxna lagu soo bandhigo. sidoo kaleeto waxaa la mid ah istaadiyaha weyn ee qaranka, istaadiyaha dalka Soomaaliya ee Istaadiyo Muqdisho oo maantay ah meesha kaliya ee kubadda cagta lagu soo bandhigo oona ah garoon aad u baaxad weyn qaado 10,000 oo qofood. sidoo kale tiyaana hilmaamine wadooyinkii waaweynay ee uu dhisay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee maanta ilaa hadda dhismihiisa ay socoto. qodobka ugu dambeeya oo ah wax ka bedelkii siyaasadda arrimaha dibadda kaasoo maanta dhigay meel aad u wanaagsan faragelinta ay nagu hayeen wadamada shisheeye, kuwa dariska ah iyo kuwa kaleeto oo maanta xaaladaad aragta aan ka istaagnay wadankeena ku soo laabday quwadii weyneed weliba laga cabsado maantay noqday wadamada hadda dunida la jaan qaadayo. qodobka ugu dambeeya oo aad ula yaabi doonto mucaaradka saddexda aysan weligood gaari karin ee uu sameeyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo aadad ula yaabaysa dad maqasho hadalkaasi. kow qodobka ugu hore wuxuu noqon doonaa kartida, dulqaadka iyo aamusnaanta. labo waxqabadkiisa baaxadda weyn. saddex siyaasad xasiloon. marka aan ku leeyahay kartida, dulqaadka iyo aamusnaanta iyadoo jaa-ifeynayaan madaxdii ka horeysay ee dalka soo qabtay madaxna ka soo ahay oo ku jaa-ifeynayaan, caynayaan, aflagaadeynayaan, weliba aanan ka xishoonaynin ayuu ka aamusay una jawaabin, weliba fiiriyay danaha dalkiisa iyo dadkiisa. yaana ku dheeraane meeshaas qodobka xiga wuxuu noqon doonaa waxqabadkiisa baaxadda weyn oo ah maantay dhisay ciidan xoogan kaasoo difaacaya xuduudaha weliba sugaya amniga dalkiisa. weliba waxaa usii dheer raggii ku naf waayay difaaca dalkooda, caruurtooda weli lagu xanaaneynayo goobihii xanaanada ee leedahay dowladda Soomaaliya. weliba yaana ka reebine raggii lixaadkooda ku beelay difaaca dalkooda weliba ilaa hadda mushaarkooda ay u socoto. qodobka ugu dambeeya wuxuu noqon doonaa waa mid aad ula yaabi doonto waa siyaasad xasilo. marka aan ku leeyahay wuxuu la yimid siyaasad ka duwan dadkii hore ee maanta jooga xaaladii ay ku dhaqmi jireen, weliba ka duway la yimid wadaniyadnimo iyo hab dhaqan wanaagsan kaasoo ka dhigay maantay dalkeena mid aad iyo aad u wanaagsan.
waad ku mahadsantahay haddaa intaas soo gaartay video waana sii share garay oo gaarsii dadka kaleeta aan waxba ka ogeyn xaaladda saxda ay taagan